عبد القاسم فرح تغسيله وجر وحان شيغايا إن تيتين كان aan lagala qaadin aan ka codsanay dawladda maadaama raacideeda aan lahay titanka waxaan ugu talagalnay qorraxdaas ayaan ka u isticmaalnaa maana dib kale ma wadan anaga tagsiilasaan u lahay taas waxa waaye waa propaganda maana wax tagsiila dhibaato ay geystaan shilnaan raadinaynaa ma dib uma geysan anaga magacayga waa Cabdulle Idris waxaan ku noolahay tagsiis waxaan kamid ahay reewajar marka amar dawlad waaye waxa la weyn la bixiyo dad soo askii fiiqa wallahi horta ninku waxa leenahay waa qof walba waxa leenahay wax sidoo wax la uu tirigal wax waa la weyn wax leen karaa nin chief ah yaabna ku qabsaday marka cunug yar oo dhalinyaro oo leesanaysan adu wado soo saagaar wuxuu rabo ku suuban karaa laakiin inta shaqaysanaysa ka badan anaga tinta ay ku xanuun u wadan waxa way meesha dhul ruux kaliya waa dhul oo kuleelay marka maxalli jiray lama socon kara baashan laanteed marka hadda waxa la jiray waxa leeyahay nimanka traffic-ka oo tan waxa leeyahay ati maxalli jiray dad oo ininka mas'uulinka oo culimo ayaa ka dambeeyay anaga ma wadan leeyahay laakiin waxa fiicnaa leeyahay nimanka culimada anaga dacweyna waxa ku fiicnaa leeyahay dadka inay u nasteexaan ilmaha dhalinyarada inay u nasteexaan laakiin waxa ka xunnaay inay gaal nagu dacweeyaan gaalada awalba kama baxsan jireen awalba ma noqon jireen lacag u cun jireen laakiin hadda xalaal ay u sii noqonaysaa marka gaal ma idanana marka waxa way cunay dhalinyarada waxa wax suubanaa la qabanay ina jirnaa aan qayb ah bro أنا مقعي وحالي حسن محمد مركا ستيج كان جواه سببت أنو فجنا يحاول داره اللي سويري وماشان بوليس نقوله يري وانا رداي أفري توم بريانين قبلنا مرايدان مدو كفوجيا مركا كي أن كفوجين وايا هدو تزين نقعد نهدي مركا مدام وافض ذيساني مركا ضد بدن على قبتيان مغلق قبسي بدال بالله هادو تاديغو ان شقينين بدلك lacag keen lagu dheelay waxaana gashay balbiilka caruurta gabinay iska fujiye marka cabsiya noo geysay marka sababtan igala fahmayta wallahi sabab badan la sheegay nimankan culimada subkeem dacwooday waana la dhahay qorshe kala jira waana la dhahay marka adiga kulli xal waa fahmi wayni hada xaq booliska oo nagala soo galay marka cabsi waa cabsanay marka nin cabsadina maxaa iska cabsatay alla ma way maxaa cabsatay lama dhax cabsidaas aan soo gashay waxay naga celisaa qorraxda badana waxa waaye adigoo maaragtay qorraxda iska taagan tahay qorraxda ku qabanay marka difaac weyn inoo haysa macal waxa iska qaaday MCA iska qaadi kartaa masa nin madaxa qaadi kartaa marka ay qariga ku dhaaf maxaa ku qarin marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa arrintan inay dib uga fikirto inta si aad ba maaragtay aan ka warqabnaa laakiin dadka anaga wax xumaan ku dhaqanaya anaga ma nahna umad ba fiican umad way xuntahay shant farad bi ilay muslimin marka waxaan leenahay dawladda codsi waxaan u geysanaynaa inay maaragtay intaan hore inoo ahaato bacda dabku munaafiq oo fala muumin ba ku dhintaa la marka de arrinta marka ay taagneed inay laga qabtay ahayd laakiin anaga inay maaragtay faraha nugul soo taaga xuntahay مساكين اسك حملنا نحن marka ma fiiqday aniga waan fiiqaha arintaas iida hadaan odayaalnahay waa ka hor imaasanahay ma ogolantiinteed gabdhihii stand 7 stand 8 form 4 form 2 wixii iskuulaha waa ka xiran yihiin wadooyinkana la qaadahaya laameydaas la tagaa meelaha laalaabke marka gaariyaasha afar shan ay meelaha u tuuran yihiin ma ogolin arintaas culimada dawladda DCga MPga governor waxaan u sheegaynaa arintaas inay arin xun fasahaad tahay akhris awal lagu kala maqnaay akhris ma jira marka ilmihii way fasahaadeen waxaan rabnaa tinted gaariyaasha in laga bixiyo clean laga wada dhigo oo la cadeeyo raayigaas asaga wax garadka wajeer oo dhan way isla qabaan arintaasan annaga culimada u sheegaynaa arintaas waa jirtaa waa wacad oo raaxday ka saaraysa tucado wayda waa la iska gashan karaa laakiin midaan madow oo gaarigaas hore iyo gadaalba ka madow yahay annaga cunugiisa adeer dhashay hadaa gaarigaas ku dhax jiro ma fahmaysid gaarigu waa xiran yahay ammaankiina waa xun yahay oo maanta hadaas nin xun ku jiro oo hub lagu wada hati ma arki kartid marka arintaas iide gabar wiil waxa soo dhamaalaba anaga ba ogol
arrintaas tindeed waa ka hor imaasana annaga boqolkiiba boqol waa xun yihiin maxaa yeelay waxaad arkaysaa afarmeelka markaad mari gawaariyaal sida magaalada hadda ay u tuuran yihiin ka badan duurka u tuuran maxaa lagu samaynhayaa gawaaridaas xumaana lagu samaynhayaa marka xumaanta inaan fiirsan odayaalna aanu nahay muslimna alla naga dhigi gabdhihii wiilishiina innaga aan dhalnay sida iida ee macquul ma aha dadka u xaglinaya leh gabdhaha iyo wiilisha ma xumo been waayo waa xun yihiin waa la halaabay arrintaa iida in layska arka oo maaragtay gawaaridana waxaan madow oo gabdhaha lagu qaadaayo oo duurka lala galaayo laga fujiyo taasaan aniga codkayga caas yahay waxaa la yidhaha muumin xaamud waxaan rabaa arrintan baabuurta maanta lagu qabanayo oo tinteedka laga fujiyo la dhahaya aniga waan ka hor imaadsanahay sababtoo ah wajeer boqolkiiba 60 waxay wataan gawaari dadka magaalada ku nool sidaan ogsoonahay baabuurta qaar waa private dad baa iska leh shaqo ay ku aadaan xafiisyada ay ku tagaan waajibaadkooda ay ku gutaan qaarka kale tuulooyinka ay aadaan qaarka kale maaragtay waa saddex qaybood qaybta saddexaad waa taksiyaal oo dadka qaarna way kireystaan qaarna ayaga baa iska leh haddana 10 qofba 8 nin waxay wataan inta badan kiraha waa un laba inta xaq ilaa 8 qof dadka ayaa wato marka waxaan jeclaan lahay maadaama uu liira amarkan waxaad ka imaaday culimada ninka culimada ugu sareeya haddii aad ka imaaday haddii asaga aad wareeg sameey oo walaalkeen aas tagay meesha la yiraahdo miishoolaami ama tagayasida ama dadka ay aadaan haddii qof xun ama xumaan sameynaya haddii aas arkay waxaan jeclaan lahay qofka asaga in aad soo qabto oo jeel ka dhiga asaga oo ma aragtay magac wata magacii muslimiinta iyo magacii culimada haddii aad sameeynin haddana waxaan jeclaan lahay haddii aas arkay qof xumaan sameynaya in aas wacyigeliyo oo masaajidada wajeer inta ku taalo dhan oo amro culimadii imaamiinta in ay ma aragtay ka hadlaan arrintaas waxaana dadka anfacaya wacyigelin laakiin dadka ma anfacaysa in la qabto waa nasiib darro aniga hadda waxaan tagay meesha booliiska waxaan arkay ilaa 40-50 gaari oo meesha lagu xareey oo dad masaakiin ay wateen aad baan ugu xumay arrintaas dadka waa masaakiin shacabka waa liitaan wajeer waad ogsoontiin dhaqaale xumo ayay la daalaan dhici haysaa dadka ma aragtay haddii maamul tahay haddii nidaam tahay haddii business tahay dadka aad iyo aad ay u hooseeyaan dadkii wajeer oo la daalaa dhacaya dhaqaale xumo 5 sano haysato haddii maanta haddana dhalinyaradii gawaarida ay wateen oo maanta ay biil ka raadsanayeen jeelka lagu xareey tinteedkan shalay marka ay saarayeen qarash bay ku saareen maanta marka la fujin haddana qarash bay ku fujinaan xagee ka keenayeen ma haystaan magaalada ma kala socoto business ma laha waa qaab darro waa arxam darro aad baan ugu xumay waxaan jeclaan lahay dadka in la wacyigeliyo boqolkiiba 98 way wanaagsan yihiin waana culimo waana garanaa walaalkeen ninka culimada ugu sareeya dad badan oo culimo gawaarida wato irsaqa ku raadsada xalaal leh boqolkiiba 98 way wanaagsan yihiin boqolkiiba waxaan dhihi karaa laba qof ayaa xun boqolkiiba 2 ilaa 98 yaa badan walaalayaal labada in la qabto oo saldhiga la dhiga ayaan jeclaan lahay laakiin 98 kale in la soo xaree oo laba qof qalad ay sameeyaan lagu xaree oo magaalada laba qof qalad ay sameeyaan maanta asgalaafto oo ma aragtay baabuurtii ha laga fujiyo xabsi ha lu tuuro liiraad waxaan u arkaa nasiib darro tukaita watu wa na own PSV vehicles kwa sababu wazee pia walalamika na pia sisi tumeona ya kuwa zaidi watu wanabebwa na hizi PSV vehicles wale wasichana inakuwa rahisi kwa sababu ya simu siku hizi msichana tu anapigiwa simu na mvulana anaambiwa tukutane mahali fulani anachukua PSV vehicle kama ni taksi kwa mfano anaenda anabebwa mtu wa taksi kazi yake anabeba mtu ajue anapeleka wapi bora pesa apate akishabebwa anapelekwa alafu anaenda wanafanya. Sasa ile inaochangia zaidi ni kuwa hizi gari ziko na nyingi karibu zote zimewekwa vioo zao zimewekwa tinted hata mbele nyuma na kwa size iko tinted huwezi kuona ni mtu nani yuko ndani. Sasa hata ukibeba msichana wa mtu ambaye hata yuko underage huwezi kuna wasiwasi because hawezi onekana. Sasa inakuwa rahisi kutenda huo uhalifu kwa sababu ya hizo tinted vehicles. Tunapatia 2 weeks wafanye hiyo kazi ya kusafisha hizo magari ziwe zinakaa vile zina comply ndio sasa waendelee biashara. So tukaambia namna hiyo after 2 weeks sisi tutaanza serious crackdown.
Kwa hivyo hatutakuwa na set of laws ambazo hapa Wajir zitakuwa zinasemekana zisifanywe vile inafanywa mahali ingine kwa sababu kuna joto. Hiyo tutakataa. Tunataka kuwaomba wananchi waweze kuadhiri gari zile ambazo zina comply na sheria za traffic. Kwa sababu gari ambayo hai comply na sheria za traffic inaweza ikakupatia inconveniences, kwa sababu tukipata tutashika, na tukishika hao watu, hata wewe mara nyingi kwa sababu ulikuwa unaadhiri hiyo gari unaweza ukapatikana pia na makosa ya kuenda kwenye gari ambazo hazi comply. Hata wewe unaweza tafutiwa njia ya vile utashtakiwa.